halkaad naga daanaysaan waa Xasan Taliye. maanta halkan waxaan soo istaagnay inaan bilaabno barnaamijkii markaasi ahaa jaceelkaaga hadduu daacad ku yahay tijaabi kulli ciyaar aan kaaga sheekeynaa ma nahaga ku macallina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الكسور وهذا أوش شو بليس حكوا لدي يوتيوب كسوتاي سبسكرايب نصر قبل كان فرصة إنه نحمل الدعوة وراي هذا ما صنته سو مقال كان مقالة كلو كدوية مقال كان محاربة مقتة بحال له نينك جانس إسقفيو أساق لبخوا الله مقتة سو مرك أني هند جانس كأني إسقفي أو لبخوا مانت سو جانس كاس محوي هاي جانس كاس وح كلامه ما أنتو حاول مقال هذا واي 4 years ago فهمت muuqaalkaas waxaa duuba 4 sano ka hor markaa duubayso waxaa jeclaa inaa youtuber aan noqdo balse waa haleeli waay sababtoo ah waa isku dayay talaabo waa qaaday laakiin waxaa noqday qof talaawadiisa ka soo laabtay kusaan dhaamo kuwashiisa u tagna ciyaarta daawana kula inaa idin la wadaago waxa qabanay iyo waxaas dhan waxaa rabaa idinka idin tuso nila wadaago oo idinkan day fikradiina ay ka dhiibataan sababtoo ah muuqaalka waxa waaye muuqaalkaas 4 sano ka hor duubay 4 sano ka hor markaa duuway waxaa soo dhigay YouTube sidoo kale waxaa soo dhigay Facebook page-kayga soo dhigay soo ina maanta baqaato waxaa dhalisay Facebook page-ka waxaa la soo dhahay muuqaalkaaga la dhahay waxaa soo dhigtay ma xiliya 4 years ago 4 sano xirtay la dhahay yara soo dashalna muuqaalka soo duwaray soo waayar mashquulay soo waxaa rabaa muuqaalkaas inaa idin la wadaago sida markaasi farqiga inoo dhaxeeyay maalinka iyo maanta so maalinka waxay horta muuqaalka la daawo xogaa barnaamijkaas waxaa soo wada markaasi Ridwaan Isaaq maanta waxaan ugu targalay inaan magaalada Muqdisho aan ka sii bilaabno haddii ay macquul tahay halka ayaan ka sii wada doonaa nala socdo marka barnaamijkeena waxaan ku bilaawi doonaa gabadhan oo markaasi iyadana waxay dareenkeeda iyo wixii markaasi la gudboon ay ka hadli doonto abaa ku soo dhawaa barnaamijka ku dhawahay barnaamijkan waxaa soo wada Ridwaan Isaaq barnaamij markaasi jaceelkaaga hadduu daacad ku yahay tijaabi marka maxaa ka dhileed والله اوكي ما شاء الله وتجاوبنا ان شاء الله بس والله saa aragtay ina muuqaalka waxaa ka hadlooyaa jacayl muuqaalka waxaa ka hadlooyaa qof jacaylka tijaabina waagi waxay ahayd oo Ridwaan Isaaq oo markaas magaalka u kala xirnaada ahayd soo asaga masiira 4 sano ka hor markaas Ridwaan Isaaq markaas soo baxay zaid loo xiisinay soo hadda sidoo hore way ka duwan tahay barnaamijyadii sidoo hore way ka duwan yihiin sax laakiin markaas waxay ahayd marka xataa uu shidnad ani iyo Soomaali Muqdisho waxaa ka simay markaas barnaamij jacaylka ay tijaabi ani iyo wiil kale oo la haayo Yunaani oo hada barta TikTok caanka ee la wada yaqaano YouTuber inuu yaa umleena laakiin inaad caan oo famous oo la yaqaano waay soo ani markaas doonta waa wadi waa ka haray fad shidaal aan noqdo umleena ba shidaal oo kale go umleena soo muuqaalkaas waxaa sameynay tijaabo jacaylkaaga gabadh markaas ay wareysinay jacaylkeeda ka wareysinay qofaa u tijaabinayay soo way ku guul dareystay umaleena muuqaalka wili ma sii daawanin de ma fahanti marka maalinka muuqaalkaas duway soo waxa ahaa YouTuber iska caadi ahaa soo shalay imaantii kala duwan tahay soo shalay xilliga muuqaalkaas aad duway 4 sano ka hor waxa isbedelay maskax ahaan jir ahaan mentally ahaan garaad ahaan all of them waxa waay wax dhan way isbedeleen fahanti soo shalay maadaama ay maanta ay ka duwan tahay insha Allah waxaa rajayna maanta inaan ugu faa'iideeyo soo muuqaalkaas marka ahmiyadiisa soo qaatay waxay tahay shalay marka duway qof waxa fikir ahaan aan u dhameystiray inuu YouTube markaasi oo soo galo laakiin maybe haddii maalinkaas aad joogteen lahaa YouTube duwisteeda soo maanta waxa ahaan lahaa famouska maanta labada yaqaano meel kasta loo og yahay soo laakiin waqtigaas waa ka faa'iideysan weyn soo ma ha laakiin insha Allah waxa rajeynaa hadda inaan waqtigaas ka faa'iideeyo ma fahanti soo hadda ka faa'iideynaya hadda wax walba sida la rabay qaabka loo rabay u sameyn doonaa idinkina waxa idin codsanayaa waxay tahay inaad igu dhiirigelisaan inaan muuqaalkan iyo kuwo badan oo kan ka duwan inaan soo sameeyo iyo ogolaada inaan maanta bulshada aan dhex galo inaan maanta dadka aan ka yaabsado muuqaalo aan hore loo arkin inaan sameeyo taas igu dhiirigeliyo oo maxay igu dhiirigelinaysaa haddii aad muuqaalka ilaa gareysaan haddii viewska soo viewska waxa ka soo horeeyo ani ahaanteeda markaa fiiriyo viewska like goram iman kartaa wax u weyn maanta ani jaceylkiina aan ku dareemi karaa waxay tahay like-ta soo qofka markuu i daawado hadduu ilaa gareeyo soo waxay ka dhigan tahay in good job leedahay ma fahanti markaas shaqada aan hore u sii wadaa markaas saxaabta qof kasta oo muuqaalkayga daawado ama halkan soo gaaro waxa ka codsanaya hadduu muuqaalkayga soo gaaro inuu ilaa gareeyo soo markastoo adi ilaa gareyso ogu waa markastoo aan khatarta ay dhabeynaysid okay
markasto aa muuqaalkayga like aa ii saartan waa markasto aa khatartii dhibanaysa so ana da like badan arko waxaa dhahaa muuqaalkaas waa laga helay waa la jeclay so muuqaalkan muuqaal ka duwan soo samee ka xiisa badan so markaas maxaa dhacaysa inaa khatarta aa u dhawaado so marka khatarta idinka iga fogey karo idinka ii dhaweyn karo so markastana waxaa jecel inaa khatarta aa ii dhaweysaan aa idhahdaan dee libaaxa xasan kasoo taawo libaaxa xasanka kasoo taawo ani warkaasaa ikaraayo so hadda taas libaaxa xasan kasoo taawo haddaa idhahdaan insha allah oo muuqaalkiisa alay gareysaan libaaxa xasanka waa kasoo taawanaa ani kulley ciyaar aan kaaga sheekeynaya maaha indhahaaga ku macalina ama waxa waaye ama libaaxa xasan kasoo taawanaa oo views badanaa helaya maaha miya kusaan dhahay buntu heshiisa u tagnaa ciyaarta daawanaa kulaha waxa waaye waa lagu kala guuraa adi wax ka dhexeeya ba jirin marka muuqaalkii muhiimadiis intaas ahayd 4 sano ka hor haddii ay youtuber dhab ahaan lahaa sow sidaan way ka duwanaan muuqaalkii mar inaan halaan ka bari waxaa ku leeyahay muuqaalkiisa xiga intaan eeba idinkii kaga kulmeyno salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu